السلام عليكم دمان قرابة وين لسلامي family كي friends كي إيو silence followers كا دad كان مصنو يجلا صعدة برهب الشدة ما أنت واحد نصوق علي أنا إن الشركة ريا خبرته عن صوية شيء السنة دي هلا صور دافعين خبرت كم إذا واحد هيد 2009 I think إن May أهيد وأنا ملاينية وقت قد ما هو أنا حفيز فدية بوحى يمد نين صوماليا كيمد وكشري برلمان كي شريف حسن شريف حسن مركا وحو يويري وحن ربعين الله كلمو برلمانتيريان كقبلك أنا بمركز واحد بوليتيكال خبرة إيو سيستم كوسو وشقي وحاس وركا ما هيو وراء مساسا ها وراء قبان قري وحان أدري legislature كقبلك مركا legislature كقبلك أدري هذا وحير كبعدي أنا شيء يري من كاسات شوغا برلمانتيريا وحربا إنه إلا كلمه سلام مركبة واحد يقصو عيد السي قبلك كسعطة speaker ka oo gobolka inkaas oo la oran jiray Ken Kalowski oo backgroundkiisu Ukrainian ahaa oo markaas ahaa speaker of the legislature xisbiga conservative kana ka tirsanaa waxay tiri Monday bay ahayd markaas ay tiri speakerku wuxuu rabaa inuu ina arko talaadada subaxii isla markii waa soo tagay ninkii aniga iyo nin markaa oday German oo ahaa jaamac la yiraahdo israacnay meeshaan tagnay markaan fariisanay boos ashi ugu horeysay weydiiyay waxa ahayd yaa way maxamed cako markaas aan waa aniga markaas yiri niyo xafiiskayga waxay qaadataa 3 bilood in laga helo appointment in martay layla yeesho usually 3 bilood ay qaataan laakiin ma taqaana sababtan dhacday in ta shalay soo wacday maanta in aan kula kulmo saayir warka ma hayo ana waxaan ahaa curiosity markaas history noo galay wuxuu yiri Soomaali baatiin ha wuxuu yiri anaga waxaan ahaa anagu Ukrainian ma ka soo jeedaa waqtigan gobolkan nimid gobolka Alberta la yiraahdo oo Canada ka tirsan ودكتور هذا وحيري يوكرينيان كود برمنت كاترسن ويان قبلك أو بوليتيكال مارتاي ملفي عن كهية وقت جاز بيروان عصبين أدبنا له عدد إنشري ولا بإنجليز كي جرماني بيرو وحابن له دي تشري إن عن قرية لنا سريع لنا بيرك بحلدا أما عن سريع لنا بحلدا حيوان كي عناية شغلة أوجب بدنا نلسين تشرين وحها معنا وكذي كان That was 2 centuries ago. We had an amount of water estimation. That's how long it takes in a progress for some need. Madam, أنا بنتاس أي نقص مرت وحلا يا بيبيري إذن كو Somalia وحد يمي هنا الباب كي صقرا عيسان وأيضا مرتاي صومرين بروسيس كاس وأيضا مرتاي بل ترتيب وصانين. مدة كل وحير أنا بوحير مركان شام عذاه دين شري دت Soomaaliya وإلى دين شري ولي بقبل كيجان medicine كان لوسو دير شري قبل كانوا بيحكوا اللي راس سكاتش ونا إنجنير هذا مارتاي بيرها لوسو دير شري مركو وحير وياهن ما أرجع محد عاي وربو كم وهي Soomaaliya إن civil war كدعاء وانقحوتي هل كان كوني ميدو وحصل دمر كم هي سبوا ويان و شير هانكوين هذا عملوا ويان مركا أنا هذا الكيب وحوه الله وحيالون ورت ما أقول أن نقول نحنا هاي جل شرو هنا ودد برايد له أو مارت إسلوين حدنا عن عبسي أقوم مركز تاسع ورت كينتي بانكورين على الباب وسكر مدة ذكرته هدي إذنكو أنت صوم مرتين وقت وقت قاعد إنكو قط 2 century لا بقول صن إنكو قاطين على الكانت مادام maxaa anaga noogu qasbayna inaan process ka dheer soo marno mana siisan buugi aad heerkan ku soo gaadheen si aan u aqrino shortcut ugu noqon
waxa aan arrintaa uga dan leeyahay waxa weeyaan anigu hadda waxaan joogay waqti ilaa 30 sano joogay waxaad moodaa stuck inaan ku noqonay horumarkii dadkaas 200 sano ka hadlay laakiin waxaan u aaminsanahay inayna meel la uga socon meesha hadda aan joogno sababtoo ah hoggaan ma lihin dibta meesha naga haysato weeyaan Soomaaliya hogaaminkeeda aad u xun hogaam weelada laakiin hogaamiyeedu sida ugu wanaagsan dadka uma maamulaan laakiin halkan aan joogno hoggaankeedu hoggaan ma leh saasoo tahayna magaalada waxaa ku nool dadka ugu khibrad fiican ugu aqoonta badan oo garanaya systemka meesha u socdo laakiin 14 kan aqaana wiiliya ka aqrisanaya oo hebel aan noqono maanta haddii ay istaagaan wuxuun naga horumar ka gaari kara wadankan oo hogaamin kara laakiin waxay arkaan inaan ciidina aysan maaragtay wax ka dhageysanin magaalada waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iyo shirar iyo ka socda laakiin wax anaga naga khuseeya ma jiraan kan ugu fiican heritage baa la yiraahdaa waa wax fiican inaan ismuujino laakiin waxba ka horeeya oo ah war inagu horumar maxaynu ka sameynaa wadanka haday noqoto xagga cilmiga haday noqoto xagga waxbarashada haday noqoto xagga socialka haday noqoto hadda dhaqaalaha haday noqoto maartay sheeg maartay xanaanaynta dadkeena waayeelka ama dadkeena maartay u baahan special needs ka qaba baahiya gaar qaba ama haday noqoto family-yaasheena reeraha inta burburay ay gabadhu hogaaminayso kaligeed oo single mother waxyaalahaas oo dhan waxuman ururo waa jiraan government wax ka qaatan laakiin iyaguna is not well funded sababtoo ah cid u dacwoon u advocate gareynaysa ma jirto haddaba waxaan jeclaan lahaa waan kulleyba ku riyoonaya in isbedel ka yimaada xagga hoggaanka iyo xagga horumarinta arrintaasoo ah inay tahay aan laga maarmaan ahayn sababtoo ah halkan number fiicanna waan ku nimid haddana Mareykanka dhibaatada ka timaada anaga waan ugu soo gufaacdayo Mareykanka saan ku inii sheegay Mareykanku markii uu hindhiso anaga waxaan ugu dhacaa hargab gobolkayga hadda waxaa ka muuqda arrin cunsuriyiin oo cunsurinimo ah oo dhaqdhaqaaqa laakiin anagu aanan ka falcelinayn waxa loo dan leeyahay waa inaga sababtoo Minneapolis markii la weeraray cid kale lama weerarin Soomaaliya baa la weeraray sababtoo waa usual suspect weeyaan halkana waa sidoo kale marka waxaan jeclaan lahaa in meel kasta aad joogtaan in aan u baahanahay taageero arrintan ku saabsan inaanu helno maaragtay hoggaan anigu kulleyba waqtigan hadda la joogo arrimaha ay haystaa ima ogolaanaysa intaan ordo waa jirtay aan arrimaha ina quseeyo aan ka falcelin jiray laakiin hadda waxaad moodaa inay dacdo iga daba timid marka arrintaasaan rabay dadkayga inaan ku baraarujiyo saan ii sheegay waxaan rabnay xafiis dhinaca advocacy-ga inoo qaabilsan inaynu samayno arrintaas waa arrin aan wado haddana waxay maraysaa waqtigii aanu qoran lahayn qofkii arrintaas noo matali lahaayo aanu isu keen yeeri lahayn qof hawlaheenna oo dhan inta hawlihiisa dhan noo baabi'iya haddana maaragtay reerkiisa joogto inaan taageerin ma dhacayso wadankan kama dhacdo waxyaalaha wax noogu suuroobi waayana arrintaas ka mid ah marka arrintaas taageeradeedu waa kulleyba waa soo socotaa oo kulleyba waxaan jeclahay markii holiday-dan laga baxo somehow August meelahaas inaanu campaign bilowno inaanu fundraising samayno arrintaas aanu bal at least isku dayno xafiis meel ku yaalo markii wax yimaadaan loo aado hadda waxaad moodaa markii wax yimaadaan markaas la ordaayo la kala carara laakiin ma jiro qofkii dib ku timaada ama wanaag ku yimaada meel uu target gareeyo oo la xiriiro dadkii la socodsiiyo lagu kaydiyo macluumaadkeena iyo malaha taasaan rabnaa inay noo hirgalasho haddaba waxaan jeclahay dhowr example oo arrimo aad u dhib badan oo aniga iga soo maray dadkeena ay maartay la kulmeen inay la wadaago intii marka arrintaas iyo arrinta aan uga dan lahaa waxay ahayd inaanu nahay dad reemiya nomadisa isla weyn haddana aanan baqayn marka taas waa asad weeyaan inta adeeg waa asad baa loo inta laakiin adeegu ma aha kaasoo kale markaba haddaba inta aan maartay mar kale aanu sheeko noocaan aan la share gareyn aan la wadaagayo sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh